maantay abaarakoodii duhurnimo ayaa qof ismiidaamiye ah isku qarxiyey jeerada Macalin Nuur ee gobolka Banaadir una dhow isgoyska X Control Afgooye qaraxaas ayaa reebay dhimashada hal qof oo shacab ah qofkii nafti haligaha goobta isku qarxiyey iyo dhaawaca 23 qof oo kaleeto oo goobta ka dhawaa xilliga isqarxiyuhu ismiidaamiyuu isqarxinay ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu qasaaraha badiyo ilaahay ayaa qasaaraha inta ku ekeeyay dhimashada hal qof oo shacab ahaa qofkii ismiidaamiyaha ahaa iyo 23 qof oo dhaawacyo kala duwan soo kala gaareen sidaas leeg maanta waxaan rabnaa in aan ka hadalno kiisas kala duwan oo aan si wadar ah hal mar wada hadalno soddonkii bishii May 2021 ayaa la waayay gabar yar oo lagu magacaabo Nafiso Umar Maxamuud Nafiso Umar Ahmed Abdullaahi ina hooyo Ruqyo Abdulqaadir Nuur 10 jir ahayd kuna dhalatay degmada Marka isla markaana ku nool degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir soddonkii May ayaa la waayay Nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka Nafisa oo ku jirta digsi yaalay gurigooda dhexdiisa kowdii bishii Juun 2021 abaara 7 iyo bar subaxnimo baarista kiiskaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada CID-da si wada jir aan ay wax uga baariyeen xafiiska xeerlaaninta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedeysanayaal la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socoto awgeed waxaa gacanta lagu hayaa eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koowaad eedeysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedeysanayaasha ahaa isla markaana la aaminsan yahay inay si toos ah falka ugu lug leeyihiin weli waxaa socota baaristii iyadana sidaas leeg marka baaristu ay soo dhamaato oo aanu ku wareejino garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaanu sidaas oo kaleeto idinla wadaagi doonaa halka kiiskaas uu ku dhammaaday laakiin waxaan hadda idiin sheegi karnaa in falkii noocaas ahaa uu dhacay isla markaana loo hayo eedeysanayaasha la rumaysan yahay inay kiiska ku lug leeyihiin sidaas la eg 4 bishii Juun 2021 ayaa marxuumad lagu magacaabo marxuumad Salaado Faarax Cali ina hooyo Ifraax Usmaan Jaamac 22 jir ahayd oo ku dhalatay Marka isla markaana deganayd degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaan uu dilay saygeedii oo lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac ahaana macallin iskuul oo dhigi jiray iskuulka hanti wadaag ee ku yaala degmada Wardhiigley eedeysanaha sayga marxuumad Salaado oo baxsaday oo isku day inuu cadaaladda ka baxsado ayaa wali ku raad joogan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan idinla wadaagi doonaa halka kiiska marxuumad Salaadana uu ku dambeeyo iyo gacan ku dhigista eedeysanaha falka geystay hadduu Ilaahay yiraahdo dhanka kale fariimaha kiisaska noocan oo kaleeta ah markaan ummadda la soo wadaagno waxaan ugu soo laabtay su'aalo weydiin badan oo dadka shacabka ay naga su'aalo weydiinayaan in kiiskii natiijadiisa ay dib ula wadaagin waxaan rabnaa ummadda inaan gaarsiino kiisasku marka ay dhacaan oo annagu waxaan leenahay qabashadiisa baaristiisa iyo dabagalkiisa kiiska marka aan soo gunaanadno oo baaristiisu ay waji fiican yeelato waxaa lagu wareejiyaa hay'ado kale markay malihin awoodda absolute powerka kiiska skilligeen ciidanka booliisku ku maamuli karaan malihin waxaan kiisaska inta badan sida qaanuunka dalku yaalo oo qaba la wadaagnaa maxkamadaha awoodda u leh oo garsoorka ugu horeeyo halkaas ayaa kiiska natiijadiisii ayay ku soo dhamaataa marka haddii ay laga maarmaan noqoto in natiijada kiisaska dhaco oo aan ummadda la wadaagno hordhacoodii aan natiijadoodii la wadaagno waxaan insha Allah idinla wadaagi doonaa natiijooyinka kiisasku goobta ay ku dambeeyaan waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.